قرحنا ماشي بار أساس يقول نيك أكره تجينا بطولة جاية قواعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوديال ميل كستو أدونك كجوكتان كسر دوادا برت يوتيوب كي فيسبوك عن كل النهاية بران جنال أدو أقول إلا لا مو على النبو وحنا هاي وحن قوي وحن قطعنا ما قرنا أقوني مره أنا قلت تكتب ورقة من تكتب رسول بشكلنا وعكي هذا الله أيو كارلو يعني وقف أيو أنا قبل حدث كي جوري runtii ayuu Carlo brother waxa ku harshay wax qaldan sidaan hore in kugu sheegaba waxa bili la soo dhaafay TikTok ka socday dhaqan xumo midii ugu weyneed oo gaartay heer la iska caayo xaasaska iyo waliba carruurta sidaan hore in kugu sheegaba waxa bili la soo dhaafay TikTok ka socday dhaqan xumo midii ugu weyneed oo gaartay heer la iska caayo xaasaska iyo waliba carruurta tii ugu darneed ayaa waxa ay ahayd markay xalay live ay soo wada galeen Ayub Carlo iyo Adnan Model live-ka oo intiisa badan aad ay isku karbaashayaan shakhsi ahaan labadooda ayaa markii dambe waxa dhacday waxyaabo dad badan oo Soomaaliyeed fajac ku riday waxa kamid ahaa Ayub Carlo in uu si toos ah ugu gafay xaaskii hore ee Adnan Model taasi oo magaceeda la dhaho Baro Adnan Model ayaa hore waxa ay u ahayd xaaskiisa laakiin way kala tageen mar hore Bara ayaa waxa ay la yaabtay in uu jawaab uu ka bixin waayay Adnan Model ninka xalay ugu gafay TikTok live-ka Bara oo ku nool dalka Kenya ayaa waxa ay jawaab waafi ah ka soo dhiibtay arintii xalay uu ku kacay Ayub Carlo dad badan ayaa isweydiinaya muxuu Adnan Model markaasi uga jawaabi waayay xaaskiisii hore ee loo gafayo laakiin TikTok ayaa waxa uu leeyahay shuruuc ka duwan kuwa kale TikTok hadii laba qof ay live soo wada gasho qof kamid ah qofka kale mood buu iska gelin karaa oo labadoodu meesha wada saaran ma maqli karo qofkan kale qofkan wuxuu u sheegayo Ayub Carlo ayaa Adnan Model mood geliyay kadibna wuxuu si toos ah ama bareer ah ugu gafay xaaskii hore ee Adnan Model dad badan oo Soomaaliyeed ayaa maalmahan la yaaban waxa ka dhex socda TikTok ayaa haddeertan waxa uu noqday bar qofka haduu rabo lacag in uu shakhsiyada qofka kala caayo ama uu dharka siibto jawaabta Bara waa tana أدو أقول إلا لا مو على النبو وحنا هاي وحن قوي وحن قطعنا ما قرنا أقوني مره فهذا عايت من الدياسي وتعالى ضد وين العنجري صحابة العنجري إيو نبياش ضد شرفت لها ومد شرفت لها العنجري أنا كحمو نيمبو علماء العانا أنا قدين العانا الزكاة ما فهمتين مركع عافمات بدن خير ننكسنا أسي إله حساب تمتون إله أنا كداي dhanka kale Adnan Model ayaa asna jawaab degdega waxa uu ka soo bixiyay live-kii xalay ay wada galeen Ayub Carlo Adnan Model ayaa hadalkiisa waxa uu ekaa hanjabaad aad u sareysa taasi oo 24 saacan uu qabtay Carlo in uu jawaab degdeg ah ka soo bixiyo raali gelina uu siiyo xaaskiisii hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سلام سومالوين ميرول بأدون كجوتين halkan waxaan soo taagay xalay qadar dhacday ama yani barnaamij xalay dhacay oo yani aniga xalay markan game-ka dheelayay waxaan la dheelayay Ayub Carlo runaantii game-ka waxa jiro meel yani markii aad qofka hadalkiisa darabin aad iska xiraysid runaantii aniga muddo ku jiray oo yani meeshii mudka aan taabtay waa iska xir hadalkiisa anigoo TikTok wariga ama TikTok lagu soo meeshin garanay waa arkay hadallo Ayub Carlo oo yani uu gafayo aniga gabadha xaaskayga hore runtii Ayub Carlo brother waxa ku harshay wax qaldan wallahi alcadiim ma ku dhahay gabadhaas waa gabar sharaf leh yani oo wanaag ana ayadana soo dhaxmaray wanaag uu weyn aan ka haystana waa iniga hooyada waa meesha ii surna arkaysid islaamtan afuustadu aawdtid oo kale ma ahan xishmay ka mudan tahay brother waxaad ka sheegaysana waxba kama jiro qalad waaye ana ayada carafkeen baan dhamaaday wali respectigi iyo wanaagi walaaltinimadan waa u haya ma fahmino anigana aad u xumahay qaab noocan ama qof saan u qaab daran inaan la dheelo ama life aad la soo galo Ayub Carlo maqlaysa brother muuqaalka uu soo gaari doona hadii aad 24 saacadood aad ugu gaftay gabadhaas walaasheed marna xaaskeedu aan jirtay wallahi wa billahi wa tallahi ilaah baan ku dhaartay أنا أديك أنا بحث لنا السوشيال ميديا إيه بعدها أو دنتي سام أوجين ستوبيديو وريا
rag damiir inaad yani aan dumar aan kala tagna saanaysa waraa wax qalad oo waraa nin weyn ilaahay kaa dhigay inaad fikirto waraa social media inaa cay ku joogtid maahane waraa deganaan kuma joogi kartid ragga way wada dheelaan waa la wada baashaala waa la farxaystaa war aniga xaaskaaga uma gufin saanaysa maaha oo ku kaftamina baraad waa la suuleysana teeda kale halaan ay iga faa'iidaysto waxay tahay halii aan moodkaan ku geliyay waxaa rabta afar aad ka sheegaysa student baa tahay brother oo madax weyn ma fahmino arrintaanito waa inaad kasoo jawaabto hadduu alla idmo insha allah guys ninkan iga raali noqda aniga qof cayl loogu barta ama qof lagu jejeeso diyaarna ma iyo gabadhaas mar walba in dhibaateeyo wax walba igu samayso in u dulqaata mar walba jeclahay because waa maxaa la dhahay wiilkayga hooyadiis waaye xishmad weyn u haya aad aan u jeclahay waa qadariya wallahi alcadiim inaan been sheegin ma fahmino qofkii xumeeyaan aniga u xumeeyey ayadana intaan ka raali galayna waxaan leeyahay raali noqo kulley aniga arrintan usoo bacdana u malaynaynin just caadi la ninba isku leysina laakiin ciyaal buu igu noqday insha allah adigana waxaan noqon doontaa qoftii yani raalgareyntaas iga qaadato Soomaali Maxamed idinkana raali noqda qalad iga dhacay uu ahay dad noocaas oo kale inaan la dheelo oo waxba aan garanaynin insha allah anigana qalad kuma lahayn moodkaas baa qalad haddaan maqla mar hore arrintaas ka jawaabi lahay raali ahaada insha allah love you guys. ayaantan waxa TikTok ka socda qof walba oo Soomaaliyeed ayaa la yaaban sidii aan hore in kugu soo sheegay TikTok waxa live wada gala dadkii ugu saameynta badnaa Soomaalida social media ayagoo meeshaasi ka dhex sameeya program ay labada qof bal lacag ay ku helayso dadka Soomaaliyeed ayaa la yaaban waxa ka dhici doona beri ama dhowr bilood kadib maxaa yeelay qofka maba ka xishoonayaba inuu waalidka caayo ama uu caayo qof kale haddii ay ku tahay markii kugu horeysay oo aad timaado baraheena social media ee kala ah Facebook iyo YouTube-ka waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like gareyso aad nagu soo biirto mahadsanid.